wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland caydiid Suleymaan Xaashi ayaa maanta xarig ka jaray qayb ka mid ah cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo qaybta hooyada iyo dhalaanka oo burbur muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka muuqday kaasi oo dib u dayactir lagu sameeyay iyadoo dib u dayactir ay ku sameysay hay'adda wasda oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala degmada Kismaayo ugu horeyntii agaasimaha cisbitaalka guud ee degmada Kismaayo Xuseen Sheekh Qaasim oo goobta xariga laga jarayay warbaahinta kula hadlay ayaa dhankiisa tilmaamay haddaanu nahay maamulkii cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo gurigan quruxda badan ee hadda idin muuqda bil ka hor aad buu u foolxumaa cidii aragtaa kumayna farxi jirin maantana cid kasta oo aragta oo soo gasha way ku farxaysaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasda sida qiimaha leh ee guriga u dayactirtay sida uu wasiirka caafimaadku sheegay wasda waxay hore inoo u dayactirtay qaybta xafiiska isbitaalka furayowana lagu wareejiyay waan gudoonay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan mahadnaqaynaa waxaana ballan qaadaynaa gurigaas inaanu dayactirkiisa ilaalino inaanu xanaanayno sidii loogu talagalay inaanu uga faa'iideysano baanu ballan qaadaynaa waxa sharaf noo ah anagoo wasda gurigan isbitaalka General Hospital isbitaalkii weynaa guriga caruurta oo dayactirnay oo aan u galay si aad aragtaan markii hore oo ugu gaabnaa kor baan u qaadnay sidaan aan u dayactirnay waxaan ku wareejinaynaa oo nagala wareegaya wasiirka caafimaadka caydiid dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa tilmaamay in qaybta hooyada iyo dhalaanka ay si toos u hawlgali doonto wixii maanta ka dambeeya farxad noo ah saaka inaan la wareegno gurigii cisbitaalkii caruurta oo ay dayactirtay hay'adda wasda saakana furayaashiisiina lagu wareejiyay si loogu hawlgalo oo dadkii Soomaaliyeed loogu adeego caruurta Soomaaliyeed loogu shaqeeyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa hay'adda wasda dadaalka fiican oo ay la sameeyay iyo wada shaqeynta fiican ee wasaaradda caafimaadka la leedahay waxay noo dayactirtay oo hore oo hadda lagu hawlgalaa qaybta xafiiska maamulka ee cisbitaalka guud ee Kismaayo General Hospital maanta cisbitaalkii caruurta oo aad aragteen say ka dhigtay oo loo dayactiray baan furayaashiisii kala wareegnay alxamdulillah arrin fiican weeye aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay wixii ay ku qabteen halkan meesha ka soo saareen wax khayr leh ugu bedelaan leenahay waxaan ku wareejinayaa furayaashan wasaaradda caafimaadku la wareegtay agaasimaha cisbitaalka guud ee Kismaayo Xuseen Sheekh Qaasim waxaan Xuseen Sheekh Qaasim kula dardaarmayaa gurigan in loogu dhaqmo si habsami ah oo la ilaaliyo si uu waqti macna leh dadka Soomaaliyeed ugu shaqeeyo waxaan ku wareejinayaa furayaashii cisbitaalka caruurta oo saaka hawshiisii dhamaatay Xuseen la wareeg aad iyo aad baa mahadsantihiin cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayaa ahaa mid dib u dayactir xoogan uu ka socday iyadoona qayb loo dayactirayay cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo Cabdi Casiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan kalsan TV Kismaayo.